Facebook ayaa toddobaadkani bilaabay tallaabo ay saami ugu yeelanayaan suuqyada saamiyada. Application-kan IPO ayaa laga yaabaa in goobtaasi bulshadeed ay ka hesho lacag dhan $5 milyan. Arrintani ayaa laga yaabaa in qiimaheeda marka la isu geeyo uu ka dhigo ilaa $100 bilyan. Hase ahaatee, waxaa laga yaabaa in ay qaadato 3 ilaa 4 bilood in la bilaabo kala iibsiga saamiyada. Tallaabadan ayaa ka dhigaysa shabakadani ay adeegsadaan $800 milyan, midda soo bandhigta saamiyada ugu weyn ilaa hadda. war qof u dhashay dalka Britain uu ku qoray bogga Twitter-ka ah ayaa sababay in loo diida fasax uu ku tagi lahaa dalka Mareykanka kadib markii mas'uuliyiinta ay u arkeen inuu halis ku yahay ammaanka dalkaasi. Inta uusan ka bixin dalka Britain ayaa Lee Van Bryan bogga Twitter-ka waxa uu ku qoray inuu doonayay inuu burburiyo Amerika. Arrintaasi iyo mid kale oo la xiriirta soo qodidda qabriga Marilyn Monroe oo ah war laga soo xigtay barnaamij ka baxay TV-ga Family Guy ayaa u noqday wasaaradda ammaanka gudaha ee Mareykanka in ay ku joojisa Van Bryan iyo saaxiibadii airportka Los Angeles waxaana markiiba loo soo celiyay dalkiisa. Cillad xagga farsamada ah oo qabsatay bogga bulshadeed ee Weibo ayaa sababtay baroordiiq loo adeegsanayay internetka. Boggani ayaa 2 beri khadka ka baxay waxayna ku kaliftay dadka adeegsada bogga iyo kuwii horay u adeegsan jiray inay u maleeyaan in bogga la xiray. maalmihii aadka loo adeegsan jiray boggani Weibo waxaa ku xirnaa ilaa 10 milyan oo qof waxaana lagu iibiyey lacag dhan $850 milyan sanadka markuu ahaa 2008. laakiin yarayntii la yareeyay nambarada la heli jiray ee sanadihii dambe ayaa sababtay warar la isla dhexmaray oo ahaa in la xiray boggani. waa dad kor duulaya New York. dhab maaha ee waa sida ay jeclaan lahayd Think Modo in daawadayaasha ay u arkaan. waxa ayna soo bandhigayaan fikir ah inay hagaajiyaan qalab remote lagu hagayo. waa wax u eg qayb ahaan warqadaha ay carruurta cirka u duulayaan, qayb ahaanna matoor leh. gadaal ayaa laga ogaan doonaa in bunbuunintani ay hordhac u ahayd waxyaabaha ay soo saari rabaan Hollywood iyo in kale. hase ahaatee, dadka reer New York qaar waxay ahayd wax ku habboonaa inay sawir ay ka qaataan.